وشدا قرحونيو أيمذيو أركتلا سيد الله الحيسان أنكو قدراي نفتو 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 قول الدرستين وديك كاشعل ما استهدينا ما استهدينا kusoo dhawaada qayb kale oo ka tirsan barnaamijyada aanu ku eegayno goobaha dalxiiska ku habboon iyo kuwa taariikhiga ah ee ku yaala Somaliland. marka laga hadlayo goobaha dalxiiska ku habboon ama taariikhiga ah ee Somaliland waxaan sinaba loo gafi karaynin goobta imika aanu ku sugannahay oo ah Laasgeel. Laasgeel waxa ay ku taallaa meel 50 kilomitir dhinaca bariga kaga aadan magaalada Hargeysa. waxaanay in yar u jirtaa jidka weyn ee isku xidha magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera. goobtan oo caan ka ahayd adduunyada oo dhan ilaa 22 sanadood ee tagay waxa caan ay ku noqotay sawirradan iga dambeeya oo lagu qiyaasayo inay ka mid yihiin sawirrada buuraha ku yaala ee ugu caansan adduunyada uguna faca weyn leh. waxa lagu qiyaasayaa in sawirradan la sawiray muddaha tan laga joogo ilaa 9,000 sanadood. haddaba buurtan imika aanu joogno Laasgeel oo sanad walba ay soo booqdaan ilaa 2,000 qof oo isugu jira Soomaali iyo dad ajnabi ah ayaa taariikhdeeda waxa iga waramaya Maxamed Cabdi Cali oo isagu wasaaradda dalxiiska ee Somaliland ugu qaabilsan goobaha taariikhiga ah iyo kuwa dalxiiska. maxamed waxa weeye ninkii isagu soo helay ee rasmiyan u helay baa la odhan karaa buurtan Laasgeel, inkastoo dadka deegaankan ku nool berigii hore ay magacyo kale u yaqaaneen buurtan. maxamed marka hore horta waan kuugu hambalyeynaya in buurtan Laasgeel ee taariikhiga aad adigu rasmiyan u heshay goormay ahayd maxamedow? 2000 ayay ahayd taariikhdu bishii un baan garanay tiisteed hadii tii sagaal tahay marka waxaan soo maray oo kasii horeysay dhagax nibi galay oo waxaan ka soo baxay